السلام عليكم دمانتين waxaan rajeyneynaa oo caafimaad qabtaan maanta waxaan ka hadli doonaa waa maxay imtixaanka IELTS-ka imtixaanka IELTS-ku badanka ardayda badan oo caqabadahan haysta ayaa jirta jaamacad kasta ama markaad apply karaysanayso meel kastoo ku taalo wadan dibadeed waxay kaa rabaan examkan bay kaa rabaan marka examkan wuxuu u taagan yahay waa International English Language Test System so waa imtixaan lagu qiimeynayo qofka luqadiisa Ingiriiska sidoo ugu hadli karaya luqadda Ingiriiska sidoo ugu noolaan karaya wadan looga hadlo luqadda Ingiriiska iyo sidoo uga shaqeyn karaya wadan ku hadlo luqadda Ingiriiska marka waxa qaata British Council-ka iyo qolo la yiraahdo ADB waxaana diyaariya imtixaanka Cambridge imtixaankani waxa loogu talagalay in ka badan 12 jaamacadood ayaa aqoonsan imtixaankan waxaana ugu talagalay inay qofka ku tijaabiyaan sidoo ugu hadli karaya ama sidoo wax ugu dhigan karaya luqadda Ingiriiska so waxa kala sanad kasta dad ku dhow 3.5 million people 3 milyan iyo 500 kun oo qof ayaa sanad kasta gala imtixaankan wuxuu kala qaybsamaa laba general iyo academic labadaas buu kala qaybsamaa general iyo academic maxay kala yihiin generalka kale waxa loogu talagalay ardaydu marka ay qofka iska caadiga ardayga ahayn ee doonaya inuu wadan fiisa ka dalbado Ingiriiska oo kale ama uu wadan Australia oo kale ku noolaado ayaa lagu oranayaa IELTS ka soo gal si loo ogaado qaabka luqadaadu ay tahay iyo inta heerka gaarsiisan tahay academic waa kan focus gareyn doono academic waa ka ardayda laga rabo laakiin badanka testku way isku yar dhow yihiin labada imtixaan marka inagu academic waa ka jaamacaduhu ka rabaan ka iskuuladu ka rabaan aad doonayso haddaad master doonayso inaad samayso iyo haddaad bachelor doonayso inaad samayso iyo haddaad PhD doonayso inaad samayso marka academic oo kale academicu wuxuu kala qaybsamaa ama waxaad ku geli karaysaa either it is computer based ama waxa weeyaan paper based labada mid uu noqon karayaa ama computer based buu noqon karayaa oo computerka ayaad ku galaysaa oo saddexdii ma garanaysaa readingka iyo listeningka iyo writingka ayaad computer ku galaysaa speakingkana qofka ka qaadaya paper based kuna waxaad waraaq ku galaysaa saddexdan readingka iyo listeningka iyo writingka speakingkana qofka ka qaadaya speakingka labadoodaba waxa ka qaadaya qof examiner baa labadaba ka qaadaya marka labaduba difficulty-ga waa isku mid labaduba waa isku difficulty marka waxaynu sharaxi doonaa muxuu ka kooban yahay mid kasta yacni imka examka caadiga academigu 4 qaybood uu ka koobnaanayaa reading listening writing iyo speaking afartaas uu ka koobnaanayaa readingka isagu waxa lagu siinayaa 60 minutes kan waxa weeyaan 30 minutes imtixaanka aad maqlayso 10 minutes ayaad haysataa oo answerkaaga aad ku soo wareejinaysaa markay paper based ka yahay 2 minutes ayaad haysataa marka uu yahay computer based si aad answer sheet ugu wareejiso writing oo kale waxa lagu siinayaa isaga laftarkiisa 60 minutes 60 minutes baad haystaa waana laba section labada section baad u kala qaybin doontaa kan badanka speaking waa 40 minutes until maybe 11 minutes 11 minutes between 11 minutes and 40 minutes meelaha ay ku dhowdahay marka reading oo kale saddex section ayuu kala qaybsamaa waynu sheegi doonaa readingku wuxuu kala qaybsamaa saddex section 3 sections saddexda section laga yaabaa sectionka ugu horeeya badanka la yiraahdo waa the easiest listening oo kale wuxuu kala qaybsamaa listening oo kale wuxuu kala qaybsamaa
wuxuu kala qaybsamaa 4 sections. 4 sections. Part 1-ka ayaa isagana la yidhaahaa ayaa ugu yar fudud. Writing oo kale wuxuu kala qaybsamaa 2 sections. Writing task 1 iyo writing task 2. Speaking-ka laftarkiisu isaguna 3 qaybood buu kala qaybsamaa 3 parts. Marka mid kasta waan eegi doonaa bal sidaad su'aalaha gebigooga aad u waajihi karayso, laakiin xogta guud examku waa sidaa. Muxuu kala qaybsamaa waynu nidhi IELTS-ku badankiisa wuxuu kala qaybsamaa general iyo academic. Academic-ga badanka ardayda laga rabaa. Marka academic-ga laba mid baad u samayn kartaa, inaad paper based u samayso ood imtixaanka ku gasho qalin iyo waraaq, ama inaad computer based u gasho ood computer iyo typing-kaaga aad qorto. waa isku wada mid baan nidhi reading iyo writing iyo listening-ka ayuunbaa computer based-ka computer-ka ah. Speaking-kana qofaa kaa qaadaya. Kanna sidaa intaa leeg baa ah paper based, speaking-kana examiner baa kaa qaadaya. Wuxuu kala qaybsamaa imtixaanku 4 qaybood buu kala qaybsamaa: reading-ka, listening-ka, writing-ka iyo speaking-ka. Imtixaanka overall waxaad haystaa 2 saacadood iyo maybe 3 saacadood meelaha around 3 hours inaad kusoo dhamaysaa laga yaaba. Speaking oo kale in waxa laga yaabaa laga qaado imtixaanka ka hor ama imtixaanka ka bacdi. Yacni for example reading iyo writing iyo listening-ka ka hor in laga qaado ama ka bacdi in laga qaado few hours after the exam. Marka intaa ayaynu kusoo gabagabayn doonaa introduction-ka waa maxay IELTS-ku.